wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Abdiraxmaan Ducaale Beyle oo shir jiraayad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa marka hore waxa uu soo dhaweeyay warbixintii ay soo saartay agaasimaha maamulka IMF taas oo ku saabsaneed meelmarinta qorshaha maaliyadeed ee Soomaaliya. wasiirka oo warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa sheegay in hay'adda IMF ay Soomaaliya ay aad ula shaqeysay qorshaha dib u habeynta maaliyadeed ee Soomaaliya isla markaana Soomaaliya ay hayso wadadii deenta looga cafin lahaa. sidoo kale wasiir Beyle ayaa waxa uu hadalkiisa intaa uu ku daray inay socdaan qorshe lagu dardargelinayo in Soomaaliya laga cafiyo deenta taasi oo hirgali karta sida uu hadalka u dhigay bisha labaad ee sanadka soo socda 2020. waxaan doonayaa inaan dadka Soomaaliyeed ka salaamo maanta aanan in yar ka warramo shirkii IMF-ta ama hay'adda lacagta adduunka shalay ka dhacay magaalada Washington kaasoo lagu soo gabagabeeyay halka IMF-tu ka taagan tahay ama hay'adda lacagta adduunka ka taagan tahay deyn cafiska geedi socodka Soomaalida deyn cafiska oo loogu talagalay inay tisqaado bisha labaad ee sanadkan uu soo socdo February. shalay shirka wax wanaagsan ka soo baxay waxa ka soo baxay wixii inagu aan filaynay haddaan Soomaali nahay oo ahaa Soomaalida geedi socodkeedii si fiican buu socdaa waqtigii loogu talagalay buu marayaa waxaana la isku wada deeyaa dadaal weyn iyo xusubduubna loogu jira in bisha labaad marka ay gaadho Soomaaliya deynta laga cafiyo. Kristalina Georgieva waxa weeye gabadha ka madaxda ah hay'adda lacagta adduunka IMF-ka shalay markay shirka ka soo baxday shir jiraayad oo kooban bay qabatay waana wada aragteen intiina badan waxay ku saabsan tahay marka waxa weeye sida u fahamteen inay aad iyo aad ugu han weeyeen hay'adda lacagtu sida aanu soo shaqeynay iyo halka Soomaaliya soo gaadhay iyo sida adduunka ula soo falgalay iyo sida wixii inaga la inooga baahnaa aan u fulinay una boojinay. waxaan dadka Soomaalidu sheegay waxa weeye wali waxyaalo yaryar baa nagu dhiman oo aan dhamaystirayna hadii Ilaahay yiraahdo ilaa aakhirka bishan 2 week baa noo haray waxaanan aad iyo aad dadaal weyn ugu jirnaa madaxda dalkan ugu jirtaa waxa weeye inaan soo dhamaystirno waxa anaga la nooga baahan yahay waxa aan doonayaa inaan isla ogaano adduunka dadka lacag ay nagu leeyahay kala yihiin nooca ugu sareeya waxa weeye nooca la yiraahdo IFIs-ka ama hay'adaha lacagta World Bank adduunka Banka Africa Islamic Bank iyo IMF-ta weeyar ayaa ugu sareeya hay'adda lacagta adduunka marka qolo waliba sida lacagteedu u dhaafi lahayd oo lacagood ay u dhaafi lahayn ayaa taladeeda la hayaa group waliba sida lacag u dhaafi lahaa deynta ayaa la hayaa. IMF-ku marka shalay waxay soo gabagabeeyeen habkii ay u dhaafi lahayn World Bank hore loo soo gabagabeeyay banka adduunka hore loo soo gabagabeeyay African Development Bank waa la soo gabagabeeyay Islamic Development Bank oo lacagtiisu aad baa u yar tahay waxaan doonaynaa in Islamic wadanada le bankali in iyaguna arinta galaan waana gelayaan laakiin kuwii ugu waaweynaa hay'adaha ugu waaweynaa World Bank adduunka African Development Bank iyo IMF waxaan nasiib wanaag aad noogu faraxsanahay in arintoodii gabagaba tahay gabagabana ku soo dhamaanayso. waxa kale oo aan idin sheegay marka waxa weeye dadyo Soomaaliyeed in bisha labaad marka la gaadho deyntii la cafinayo. si kastaba ha ahaatee shalay ayay ahayd markii golaha wakiilada dalka Mareykanka ay markii ugu horeysay ansixiyeen miisaaniyad ay ku jirto cafinta deenta lagu leeyahay dalkeenan Soomaaliya.